magaalada Dhuusamareeb caasimadda Galmudug waxaa maanta ka socota kuraasta kamid ah xubnaha golaha shacabka Soomaaliya gaar ahaan xubnaha deegaan doorashadu tahay magaalada Dhuusamareeb. doorashada oo kursiga ugu horeeyay ee hoob 139 la qabtay ayaa waxaa ku soo baxay Cabdisamed Macalin Maxamuud oo loo doortay mid ka mid noqoshada baarlamaanka 12aad ee dalka. Cabdisamed ayaa si gaar ah loogu xiray kursiga waxaana uu tanaasulay Xamdi Cali Shire oo ahayd malxiisad kadibna waxaa loo codeeyay gacan taag isaga oo helay 101 cod oo dhammaan ergadii goobta ku sugnayd. xildhibaan Cabdisamed ayaa waxaa dhalay hogaamiyaha Ahlus Sunnah wal Jamaaca Macalin Maxamuud Xasan waxaana kursigan uu u muuqdaa mid lagu qancinayo Ahlus Sunnah oo horey dagaal ula gashay dowlad goboleedka Galmudug. kursigan ayaa waxaa ku fadhiyay baarlamaankii 10aad Cabdixakiin Macalin Axmed oo dhawaan loo doortay golaha aqalka sare ee Soomaaliya. guddiga hirgelinta doorashooyinka maamul goboleedka Galmudug ayaa ka warbixiyay sida ay u dhacday doorashada oo la qabtay saaka aroortii hore. maanta oo taariikhdu tahay 3 Febraayo 2022 guddiga doorashada Galmudug waxa uu qabtay doorashada kursi ka mid ah oo lambarkiisu yahay hoob 139 oo musharax isku diiwaan galiyeen kala ah 1 Cabdisamed Macalin Maxamuud Xasan 2 Xamdi Cali Shire. waxaa ka tanaasulay tartanka Xamdi Cali Shire waxaa ergada hab gacan taag ah ugu codeeyeen musharax Cabdisamed Macalin Maxamuud Xasan waxaana ogol ugu codeeyay 101 cod oo dhammaan ergada. sidaa daraaddeed waxaa ku guulaystay doorashada kursiga hoob 139 musharax Cabdisamed Macalin Maxamuud Xasan oo helay 101 cod.